gudoomiye ku-xigeenka garabka haweenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani Marwo Safiya Cumar Faarax oo maanta ku hadashay xarunta dhexe xisbiga wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa hambalyo iyo bogaadin u dirtay hoggaanka cusub ee dhawaan lagu soo doortay shirweynihii labaad ee xisbiga wadani sidoo kalena waxay ka difaacday eedeymo xisbiga kulmiye uga yimid musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxay noo qabsoomay sidaan wada ogsoonahay shirweynihii labaad ee xisbiga wadani oo inoogu soo dhamaaday guul iyo gobonimo waxa lagu doortay hoggaan cusub oo hogaaminayo gudoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaan leeyahay hambalyo waxana loogu daray laba xubnood oo habla ah markii horeba milgo way ku jirtay wayna wada ogsoonay maantana waxana loogu daray gudoomiye Foosiya ayaa lagu daray hoggaankii mar labaad farxad bay tahay hambalyana waan u dirayaa hablaha walaaladaya ummadda reer Soomaaliland ha arkaan xisbiga wadani danaynayo haweenka iyo dhalinyarada xisbiga ka muuqata sida ay dardarta iyo dhiirigelinta ula garab taagan yahay taa intaasan kaga gudbayaa xukuumadda xisbiga kulmiye waxay halhays ka dhigteen markii wax feedback ka soo noqdo shirweynaha iyagii ay waayeen in musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro uu xisbigiisii wareejiyay ama uu xaraashay ما هتكان أما مهر الحراشة حسبي وكويه ونكبلارين هاي وحو كده حركي سياسة الجيش كأفريقيا إنه لا كان قاضو أو قان يوم الصير أذى أو جيش نملي أيو قاطع عبد الرحمن وأنا كوهم بليين إياه وقبل نبذي ينصب نمذي أوقف عبد الرحمن شيل منا مدنايو وحو كوريتشي حرص على حاج حسن أو إسنا قف مسؤول xirsi looga warwari maayo 5 sano soo socota xirsina waxaan leeyahay hambalyo waxaan u dirayaa bulshada reer Soomaaliland waxa muuqata in qabyaaladii laga gudbay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay doorashadii noo qabsoontay ee imika aynu ka gudubnay ee baarlamaanka iyo deegaanka in ummadda reer Soomaaliland ay qabyaaladii ka tanaasushay taasi waxay cadayn u tahay sidii barqad jaamac batuun iyo Cabdikariin Axmed Mooge ay loo doortay ayaa halkaasi ka muuqata marka waxaan doonaynaa insha Allah bilmillaah kariim sida inaynu hore uga sii socono oo qabyaaladii bartaaynu ku suulino waxaan bulshada reer Soomaaliland u sheegayaa gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani inuu inoo bilaabmayo diiwaangelintii kaar qaadashada codbixiyaha jaaniskan aynu ka faa'iideysano insha Allah bilmillaah kariim